السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين وانا دي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت هذا كجرت انت سوق اللي دونت انت ديب كداوان دونت دمانتين وانا دي سلام يا سكال يلا بقولي مركه هرب الآن أفاف ديبتو ما دام عنوان كيغا أن كدغي واكما أحمد رشيد أنغانا كوا مان هاي markaan sidaa leeyahay waxaan ka soo horjeedaa wax walba oo qalad ah dib walba oo qof muslima loo geysto dib walba oo qof geysta aad baan ooga xumahay ma ahi mid ku faraxsan in dadka la dhibaateeyo ma ahi mid ku faraxsan in ay soo baxaan dadka dhibaateynaya haddana ma ahi tameerdaan raacday halkii loo qayliyaaba qaylo ku darsho marka waad iga raal ahaanaysaan intaan isku dayi karo on mutawassat ahaan karo insha Allah waan ahaanayaa intaan dhexdhexaad ahaan karo dhexdhexaad intii alla igarasiyo in aan ahay dhexdhexaad ayna ila noqoto in ay tahay dhexdhexaadnimadu dhexdhexaad baan ahaan doonaa insha Allah markaan u gudagalo barnaamijkayga waxaan ka dhigay ciwaankayga waa kuma Axmed Rashiid innagana kuwa meenahay horta Axmed Rashiid ma ahan nin aan mar dhow aan ku arkay shaqooyinka uu qabto walow aanan u aqoonin face to face ama meel uu joogo ama uu ka taliyo aniga aanan joogin haddana adduunkani isagoo idil baa wuxuu isugu yimid koombo waa la iswada yaqaanaa horta Axmed Rashiid ka la sheego waa nin sarkaal ah waa nin Kenyaan ah waa nin fly Scott ah waa nin qaabilsan inuu encounter wax la yiraahdo uu ku dilo dad listigooda la hayo dad listigooda dawladda ay hayso oo la siiyay go ahead nolol iyo geeri lagu rabo waa nin marka shaqadiisu ay tahay terminator inuu wax soo afjaro ninkaasi aan sheekooyin hore ku socday ku maqlay muuqaalo aan ka arkay wuxuu ahaa nin aad iyo aad ula dirira gangiska Soomaalida kuma hayno Soomaali civilian oo caadi ah oo uu ninka dhibaateeyay oo dhibaato ka sheeganaya lama hayo I don't know aniga ma hayo marka ninkaasi waa nin dawladdiisa u shaqeynaya falalka uu sameeynayo waxyaabaha uu sameeynayo dawladdiisa og saxaafad baa booqatay wariyaal caalamka booqday waxyaabaha uu sameeynayo dhammaan waa against crime waxyaabaha hadda wadamada aad joogtaan oo idil baale dad qaabilsan kaliya inay madax jabiyaan aanan qaabilsanayn soo qabasho soo xirig u soo digid maxkamad keenis dad kala shuqul ku leh dad kale waxaa jira iyagana listi haysta qofkay arkaan aragtida ku tooganaya wadan walba leh oo caalamka kamida ayaa iska leh wadan walba terminator rule leeyahay wadan walba terminator rule leeyahay waa encounter waxa la yiraahdo ma jirto soo qabasho iyo maxkamad keenid iyo waxaasi markay iskala gudubto marka dadkii uu leen jiray waxa ugu dambeeyo ka xasuusana waa super power nimankii la oran jiray super power hadaad xasuusataan Soomaaliyeed masaajida laga gali waayo masaajida lagu soo tukan waayo waa la dhaqaaqi waayo labo isbooqataa la waayay ninkii soo afjaray buu ahaa waxa dhagaha iyaga soo gaaray isagoo culimo u duceynayaan ninkan maanta aad ka daba raaracdaan oo ay culimo u duceynayso ayna ugu duceynayso shaqada isaga uu qabtay oo ahayd inuu gaangiska cirib tiray markaan inta leeyahay not inaan isaga u qiildayayo inuu qaladaad sameeyo maxaa yeelay qofku waa bini aadan bini aadanku ma aha 100% ma aha qof walba dambi ka dhacaya madaxweynayaashu ka dhaca culimadu ka dhaca oo shacabku ka dhaca masaakiinta laftigooda oo la yiri bal ha loo gargaar laftigoodu qaladka ka dhaca bini aadanku ma aha kaamil ma dhamaystirna bini aadanku ma dhamaystirna marka isagana he is one of them waa isaga ayu iyagu kala mid yahay markay bulshad dhan tahay iyo markuu shakhsi yahay shakhsi qaladka uu galo iyo bulshad dhan qaladka ay galayso
كان قلد أوران كرنا مركا وحن أوران كرنا كان بولشة دن أي جليس محايا البولشة هذا قلد اسم بيرسط أي سقوط قلد هي بولشة هو بولشة قلد كسب بيسن لكن قفك هدو مالين قلد كدعو قفك قلد واكدعاه قفك قلد واكدعاه انتو شقديسا ku jiro mistake badan qaladyo badan uu sameeynaya qaladyadiisa ku xisaabtamaya department buu leeyahay if you have any information about that guy hadata is any complaint hadata is wax complaint department uu leeyahay laga dacwoodo isaga loo gudbisanaya kama weyna he is not above the law ma aha mid sharciga ka weyn sharciga kama uu sareeyo isaga laftigiisa waxa uu ku shaqeynayaa xeyndaabka sharciga qofka waxa uu ku shaqeynaya marka qofkani waa qof ciidan example maanta dadka ka daba wada raaraca waxay uga daba wada raaracaan hadda koor baa la yiri mid caraba iyo mid kale oo hindida oo carabta waxa rag loo soo qaatay ana caarif alla caarif huwa caarif waa ka dhacay war iyaguna way og yihiin dadka ninka ka daba raaraca waxay uga daba raaracaan ma aha in uu dhibaatooyin geysanayo waxay uga daba raaracaan baan naqaanaa maxaa yeelay ereyay soo qaadaanba qabyaalad baa ku jirta qabyaalad ayaa ku jirta horta maanta yaa ka calaacalaya marka maanta yaa ka qaylinaya ninkan soo unqaaqlayaashi namiimyada ahaa facebookyada iyo youtubada u furtay in ay islaamkan ku dhibaateeyaan dumarkii muslimeed ay ku caayaan culumadii lagu caayo madaxdii lagu caayo qabiiladii lagu caayo cid walba lagu aflagaadeeyo horta soo youtube baradii ma aha waxa soo raaca mid kale oo faasuq ah oo heesayay soo ma aha warbal ninkan maanta cid kale lagu haysto in uu wax yeeleeyay ma ii soo saari ka dhan every action has an consequences ficil walba consequences buu leeyahay war ficilkii iyo dhibaatadii youtubada iyo qashinka iyo heesihii lagu hayay consequencegiisii baa la maraya faasuqiintii baa maraysa horta ninkan waa nin noocaasa maxaa wanaagsan marka maanta mid aan soo qaatay oo boostigiisa halkan soo dhigay war anigu shacab baan ahay maxaa ii geynaya haddii aanan ahayn nin sharciyeysan haddaan ahay saxafi international jamaal baa uu booqday gaariguu saartay axmed rashiid meel walbuu la maray isagoo howlgal ku jiruu raacay weliba axmed rashiid hadduu qof xun yahay muu ninkaaba wax yeeleeyo no ma aha qofka waxay shaqadiisa ah respecti lagu siiyay leedahay war adigu ma shaqadaada in aad xitaa xuquuqul insaan u doodaa ma shaqadaada ma aha shaqadaada ma saxafi baa tahay ma tiid who are you bloody civilian nin shacab baa tahay ninka shacabka ah maxaa quseeya nabadda in uu nabad u noolaado isaga nabad ku noolaado umada kalena u rajeeyo nabad maxay ku xiran tahay marka nabadaada la tulqu bi aydikum ila tahlukati ilaahi subhanahu wa ta'ala bu quraankiisa ku leeyahay wala tulqu bi aydikum ila tahlukati war gacmihiina iyo lugihiina iyo adimadiina ku rajeynina tahluko war maxaa cunug xuno bi dhakaala oo jeega jarto oo bartay bisa qol in la isku xiro maalinba fanaanad laga daba raaraco maalinba wadaad maskiina masaajid ku jiro Allah baan kugu daayay inuu caacaayo maalinba nin siyaasi ah oo si qabiil u ataagayo inuu iska caacayo intaa ku aaday war maxaa u geeyay ninkan Flash Scott ka ah maxaa u geeyay maxaa dhaxgalshay ma hawshiisa ma shaqadiisa who the hell is he yaa xitaa majaaliyad buu ka socdaa oo wada tamaya waa cunu iska youtuber oo halka qolalka isaga qayliya waliba dhaaranayo le aniga cid wax iga qaadi karta male oo yaa soo weeraray yaa haystay marka qofka hadii uu isaga ishaligayo ma wanaagsan in ummadani xadaarad laga dhax abuuro xasarad in la abuuro yaa reer hebel yaa kan yaa buuq war Mareykan iyo Yurub iyo laga daawaye adigoo Nairobi jooga umad Nairobi joogto ka awood badan oo xoog aadan ku aadin afka lagu galshay yaa hebelay saaka gafuurkaaga ka eeg gafuurkaaga maanta buusbuusan bal yaa reer hebel ka eeg halka ka eeg natiijada resultiga yaa reer hebel bal saaka isugu ka soo gurmadaano Axmed Rashiid jagada ka qaadaan shaqada ka qaadaan saaka wakaas reer hebel يا رير هبل بان كذا شيء رير هبل بان وحور رادين ياي رير هبل بان لسكو ورر ياي نين والبو رير هبل كان والرير هبل هذا أمان هاي كاهلان والله سن قبيل شغل إذن كل هاي رير هبل شغل إذن كل هاي فاسقين باتهين نميميات تهين ومدات ربطان إن هذا سكو جتان ضد كات ربطان إن هذا مدح سكو لسان ومدات عبادة دودي محي هذا أد وحيا لين يسان حداد وحكاه الليسان وحاجري قبله
iyo dad bini aadan ganacsato lagu waxyeeleynayo magaalada Nairobi yaa waxyeeleynaya Maxamed Rashiid buu maya waa gaangis waa tuugo maxaa tuugadaas xitaa war kaamaradan aad xitaa saraakiisha la daba taagantiin oo u helaysan fursadda inaad ku soo qabataan war maxaa gabadhii halka gabaroo la afduubta aad u weydeen ilaa Cabdirashiid kan uu ka yimaado soo furto maxaad u weydeen kaamaradiina maxay u qaban weydeen maxaad dadkiina ugu adeegi weydeen maxaad iyaga ula shaqayn weydeen maxaad tuugada ooga soo duubi weydeen maxaad gabdhihiina u guide gareyn weydeen oo waardiyen weydeen maxaad u qabateen afkaad ka nooshiin afkaad ka hadashaan afkiina halkay idin geynaya hog buu ku ridayaa isagu maxaakim ba kuma bahaysid bacadaynta in uu qofkii hadlayba afka gooyay isaga baa in warkiisa la wado baa maqalnaa moogiye wali isagoo qof ka hadlaya miyaad maqashay wali ma maqashay ninkaasoo qof ka hadlaya Soomaali ah ama YouTuber ha ahaado ama ciduu raba ha ahaado yaa ku soo gaarsiiyay cunoo jeega xiiran baa ku soo gaarsiiyay inuu ninkaas saasiye adigina intii baad aamintay de wakaasa buusbuusan orada wax u qabo adiga mindhaa xaakim ah isagu xaakimnimadiisii diiday halkaaba qori inta loo dhiibay waliba loo rasaasiyay waliba biil lagu siyaa liir cidii ammaanka iyo Kenya ee dhibaataynaysa ka qabaa la yiri iyagu ku dul qoraya adiga maxaad u qaban kartaa oonan tahluuka ahayn malihi wuu saxsan yahay laakiin wiilka shacabka miskiinka ee ardayga ee wax barashada loo geeyay Nairobi u jooga iyo ninka jabsaday markaad meediyaha afka isugu gelinaysaan oo u leediin maxaakim baa maxaad oga baqaysaan ma la hadlo talaabaha laga qaado ha lagu dacweeyo war ma aha bahalkan dislike waayaha cusub iyo la saarayay maaha wuxuu waa action reaction weeye waliba nin aad dhulkiisa joogto weeye waliba nin ka awood badan weeye ciidan wato waliba lagu biilayo weeye gawaari wato shidaalkiisa wato transportkiisa wato anything wato weeye markaasaad cunug yar oo wax xitaa uu ku hayo aysan jirin oo aysan dawladdaada dirsan oo cid dirsatay jirin aysan hay'adna dirsan ayaad leedahay war ninka afka maxayday la soo afjaro war dhalinyarada idinka haligay wallahi idinka haligaya haddaad ka xumaanaysaan in qof bini aadana ama Soomaali alla waxyeeleeyo horta wax walbood samaysaan maxaad uga xumaataan Soomaali haddaan nahay wax walboon inaga samayno horta maxaan ugu xumaanaa markay meelaha kale noogu dhacaan war Soomaaliya gudaheedana saqiirada inta qabanaano kubsanaa inta jarjarnaano digsida ku ridnaa ma Axmed Rashiid baa jooga yaa jooga ma American baa jooga ma iyaga saa yeelaya ma iyaga digsiyada ku ridaya yaa way yaa ku ridaya yaa dadka tunka ka biraynaya ma Axmed Rashiid baa ma Mareykan baa no waa inaga banaanka bay ka dhacaysaa marka hadana markaasaanu leeyahay waayo cunsuriyad baa la sheegayaa asad isu soo baxaysana war yaa dadka cunsuriyeeya yaa dadka cunsuriyeeya yaa maalin iyo habeen laga cabaada oo laga calaacala jireertiina iyo jileecanagaba Soomaalida jireerkanaga iyo jileecanagaba waa cunsuri jileecina wuxuu yiri maalin wuxuu yiri jireertan waa looma ooyaan jireerkina ilaa iyo hadda uma yaqaanba in qofka Soomaaliga qofkii aan Soomaali ay inuu jileec yahay uma yaqaan oo dhibaatadooda iyo wuxuu u raadinayaa bisa qaladaadkooda iyagu buu soo goray waa ku qoslaya waliba hadaas ku hayaa maxay noo dhibtaa horta waxyaabaha inaga aanu sameeyeen sharci darro cadaalad darro cunsuriyad manaxanimo bujarinimo dhammaanteed inagay nagu kulantay ana runta ku sheegaya saqiir la dilaa wiil dhalinyaro sheegaysa shan feer lagu dhuftay oo gafuurka buusay saqiir ba inta kufsan oo dilnoon jarjarnaan digsida ku ridna meeya damiirka marka on nin ooyaya oo YouTube laga xiray damiirka noo wada kacshay meeye wali inta isu soo baxdeen dilkan saqiirada iyo dadka leynaya dawladiina ma kala hadasheen ma tiraadeen dadkaasaanu justice u rabnaa wali ma dhahdeen ma adan oran dad ba iyagoo nool la gubay dab lagu qabanayay Maxamed Rashiid baa gubay ma Kenyaan baa gubay yaa sameynayay inaga sameynay maxaa u sameynayna marka reer hebelnimo Axmed Rashiid baa maanta reer hebelnimo loo haystaa marka ma aha shaqadiisa wax lagu haysto waa reer hebelnimo midkii afka furtaaba wuxuu ku leeyahay waa ogaadeen saaduu yahay soo wad isroonka haduu ogaadeen yahay Faarax Macalin dawaaraba soo ogaadeen ma adiga haliyeega kuwa oo marba soo ogaadeen ma haduu ogaadeen yahay what's wrong haduu ogaadeen yahay maxaa qaldan ma inuu ogaadeen yahay qaladkiisu yahay saarag bay meel u bugtaa ogaadeennimadii baa waxay gashay bas Axmed Madoobe halka inta ka baxday
ogaadeenoo idilba waxaa lagu qoray liiska axmed madoobe waanu isnaqaanaa innaga dadkan qaylinayo dhan oo axmed rashiid daba taagan waanu aragnay waa CBB wallaahi san u daba taagnen sharma boy laga xiray youtube xunoo ku niikinayay wallaahi san u haysanin wallaysan u haysan wiilkii gafuurka buusbuusnaa wallaysan u haysan wallaysan u haysan dadku leynayay uu jidadka ku leynayay soo barbaawrku jidka dhac ku siinay wallaysan u haysan waxay u haystaan bes inuu ogaadeen yahay uuna ka soo jeedo beesha axmed madoobe bes intaasay u haystaan intaasaa looga daba raaraca wax kale maaha maxaa yeelay axmed rashiid shalay ma bilaabin shaqadan more than 20 years uu ku shaqaynayaa waa nin weyn maaha nin caruura shalay ma bilaabin daraadna ma bilaabin ogaadeenna habeen hore lama siinin shahaadada ogaadeennimada what is going on maxaa socdaa marka qiiro jabaantan inta iska daysaan dhalinyarada ku nool nayrobina aad ha tahluukeynina anaa runta idiin sheegay tahluuka iyo dhibaato waxay ka bilaabataa idinkan miidiyaha ku jiro wada dibadaha iyo yurubta iyo meelaha jooga naagihiinni baa jidadka isku dilaya wadooyinka isku haystaan ummadii baa la yaaban gaal iyo muslim baa la yaaban laandheeranimaad sheeganaysaan nasabnimaad sheeganaysaan waxaad sheeganaysaan dad cunsuriyadda war meel la idiin raaco Soomaali haddaan nahay meel la inoo raaco ma ay jirto cadaalad baanu sheegnaa wax un baanu sheegnaa war adduunkan maanta aanu ku noolnahay cadaalad hal baa ka jirto hashina diide waa diinta islaamka wallahi inaan been idin sheegay maanta dawlad diinta islaamka wax ku dhaqaysa la yiraahday ma gabigna media soo wada fariisanaysa naba gaala idin soo wada kiraysanaysa balance baanu rabnaa dimuqraadiyad baanu rabnaa ragga iyo dumarka waxaanu rabnaa in la simo halkaas soo fariisanaysa waa halkii meel oo ay cadaalad jirtay diide deeriinka cadaalad darrada ku raaxaysta ee wiilasha naga tahluukeenin wiilasha Nairobi jooga ee jooga maxay ahaday Nairobi jooga hanaga tahluukeynina like tan badan iyo iska dhicidan badan iyo carcarintan badan gafuuradooday saaran toosaaka buusbuusan tahay ka daaya war ha u marina in aad dawlad Soomaaliya ku taageertaan oo ama reer hebel ku xumaysaan dhalinyarada Soomaaliya dhiigooda masaakiinta dhalinyarada ilaahay uga baqa ilaahay ka cabsada anigu runta idin sheegaya axmed rashiid shalay ma dhalan waxa uu qabanayana tuugo in uu la dagaalo uu gaangis ka laayo ayaa listigiisa lahay xitaa Amnesty International waxba ka qaadi weyday maxaa yeelay criminalada uu laayo crime kooda waa la ogyahay Soomaalida isli joogto idin baa wada jecel hadda dhowrkii bari uu maqnaa gabdha afduubasha la galay wuu soo noqday labo dilaa la yiri labo xitaa ma bariyo maxkamad ma geeyo labo dilay uu wadada dhigay mar damba ma maqasheen waxba la afduubay wii gudihiisa waxa maqlayna heblaaya maqan isagii baa yimid wixii istaage labana wadadu dhigay markaasaad idinkii maxaad bilaawdeen dislike ta la saaray warkan isaga dislike idin saaraya wallahi runtaan idin sheegaya wiilasha dhalinyarada listiga gangiska nooga darina ilaahay ka cabsad carcarinta ka daaya ninkan islaameed ka hara dawlad buu leeyahay haddaad crime ku haysaan oo idinka dhabtahay dawlad aad leedihiin dawladdiinna u gudbista iyada ka shaqo qabto safaarad baad ku leedihiin waa la degan yahay Kenya dad waaweyn baa jooga siyaasiyiin baa idin joogta iyada kayska u dhiiba war carcarintan ka daaya war dhalinta haligina war halaag baad u soo dhigateen in aad wax un xaalufisaanay ka daaya qofoo ha ka qayb qaadan dagaalkan colaad hurinta wallahi waa colaad hurin qabaa'ilaa la rabaa in la iska horkeeno loo durbaantumaya reer hebel baa la rabaa in la iska horkeeno loo durbaantumaya meesha faasiqiin baad haysata wallahi inaan been idin sheekay faasiqiin iyo faajiriin baa is haysata habar waayeela oo qol ku xiran oo soo caaytamaysa wiil faasiq oo wadooyinka ku niikiya mid daacuun ah oo in ummadda uu xaalufi waxaanan ahayn ba shaqadiisa aysan ahayn hawl ay wadaan yaanan ummadda masaakiinta caruurta masaakiinta ay waxbarashada loo dirsaday ee iskuulada dhigta ee madarasooyinka dhigta yaanan loo aanayn war yaan loo dakanayn ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada wallahi ummad kala dakanaynaysa if you stay in USA or Europe Australia war ku xisaabtan Axmed Rashiid ka carcarinayso
dad baa Nairobi la joogo oo gabdhale rag leh oonan Facebook arag oonan YouTube raahayn oo dad qiimo leh ah oo madarasooyin dhigta masaajidada aanan ka bixin war hadda kanayn hawsha qabiil ha ka dhigin war hawsha qabiil ha ka dhigina qabiilada islaameed ha idinka ammaan helaan sharmaaka cabdullaahi balbal yaa dilood ogtahay horta haddii fal ay dhacaan fal walboo dhaca meel loo aaduu leeyahay ma reer hebel baad u aadaysaa ma reer hebel baa wax kaa hadleeyey ma ogaadeen baa wax kaa hadleeyey haye waay ogaadeen xaafadda deriskaaga a qabso ceeji adigana so intaa maaha waxaad raadinaysa no there is administration meeshuu wax ka sameeya administration baa ka jira weliba wiilkan walla waxyeeleeyey asagaa wuxuu dhahaya anaa weliba ka sitiisansan wuu ku faanayey anaa weliba ka muwaadinsan ayuu ku faanayay isagaa yaqaana meeshii loo dacwoon lahaa ha u dacwoodo adiga ma islaan waa yeel oo ogaadeen oo deriskaaga hortaa inaad u ceejiso no isagaa muwaadin ah ku faanayay weliba cid wax ka qaadi kadhaa inaysan jirin isaga ha dacwoodo administrationka ha u dacwoodo muwaadinnimadiisa ha isticmaalo ha raadsado xuquuqda citizenka uu leeyahay qofka citizenka ah ma adigaa u raadinaya ma garowa laga raadinayaa ma waxaa laga raadinayaa gedo waxaa laga raadinayaa kismaayo no falka meeshu ka dhaca laga raadinaya xaqiisa cidda geysataa loo raadinaya annaga shalay saadaq john muxuu noo ahaa soomaaliya runtaan isu sheegno hadda ciidamada Soomaaliya waxay halleeyaan haddii la isu soo baxa maxaan dhahnaa runtaan isu sheegno iyadoo ramadaan ah habeen ramadaan ah inta ciidamo naag uur leh xabad ku dhufteen subax markii la isu soo baxay maxaa la yiri mooryaantii baa isu soo baxaysa ciidamada waajibkooda ay gudanayaan waxa isu soo baxaya waa mooryaantii listen to me guys waa bil ramadaan naag xaamilo ah iyo cunugeedii baa xabad lagu dhuftay ciidamada dawladda ku dhuftay yaa hogaaminaya saadaq john maxay CBB ugu yeereen inay yihiin ciidamo waajibkooda gudanaya warkoodana la maqli waay dee maxay ahayd dadkan waa isbaareystayaalka isbaarada bartay Soomaa saadaq john maanta xagee maraya kuwii sidaa shalayna lahaa markuu naagta dilayay hadda xagee ka jooda agtooda qabyaaladiiste weli waxa saxsan waa un qofka ku jiro in the administration maamulka uu ka tirsan yahay uu weesaxiisa iyo qaladkiisa war marka ogaada Axmed Rashiid wuxuu la mid yahay midkaad shalay u sacbatumaysood lahayd waajibkiisuu gudanayaa hal la maqlo oo islaanta xaamilada ahayd iyo wiilkeeda bil ramadaan ah habeen afur ah xabadka beerka loo geliyay oo adiga difaacaysa waa difaacaysa shalay ciidamada waajibkoodii gudanayeen baa lahayd cidna ka heebaysan maayaan qabiil xilligiisii wuu dhammaaday Soomaa ka waran wadankii adiga ka sii horreey qabiil ka sii dhammaaday ninka waajibkiisii ka dhax gudanaya waajibkoodii gudanayaan iyagana bal dhadhanso adna dhadhanso taana dhadhanso maxaa ciidankaaga ka dhigay ciidan waajibkooda gudanaya oo wixii ka hor yimaada ay yihiin moorayaan aanan maamul doonin ciidamada dadka kalena ka dhigay dad manaxayaal ah oo waxay rabaan iska sameynaya what maxaa ka dhigay hor adduunkan wuu ka hormarsan yahay wallahi wuu naga hormarsan yahay aqliyan cilmiyan wax walba inaga hormarsan yihiin haddana waxaan isku dayaynaa innaga inaanu dhahno la jiifiyo bannaan la joojiyana bannaan war ogow beerta haddaad tabcato sisin haddaad beerato wallaadan camba guranay isla sisin ubaad guranaysaa waxa aanu samaynayno aanu saxno quluubteenna aanu saxno qabyaaladda aanu iska saarno cadaaladda aanu nafsadayada ka bilowno qofka ugu horreeya oo maanta aan la mucaamulayno aan cadaalad kula mucaamuloonno aanu ka xumaano in islaamka madaxa isla galo isdilo والله سنو سو دوانين انت لكن markaanu ku farxeen in reer hebel juf isku baxaan ogow reer hebelka aad ka dhalatay isaga reer hebel kale loo soo saari oo adigana waa dekanoobaysaa marka guys salaada maghrib baa ii soo gashay inta baa iiga kiinaad marka qiira jabaanta naga daaya faasuqiinta aad la kala safanaysan iska daaya nin heesa iyo naag niikisa iyo mid maxay ahayd umada qabyaalada youtube-da u dhax fadhiya iyo facebook inta haddaad la kala safataan oo rabtaan inaad culumadii dhalinyaradii masaakiinta ahayd waayeeladii gabdhihii madarasooyinkii iskuuladii loo dirsaday inaad u dakanaysaan haddee ku raaxaysta riinka marka riinka cadaalad darrada ku raaxaysta iyadana ku raaxaysta wax walba markaad bilaabayso start from your side adiga xaggaaga ka bilow cadaaladda xaggaaga ka bilow runta xaggaaga ka bilow
بليز اسكو دي إن آد أهاتو dhexdhexaad xitaa qofka xun cadaalad buu u baahan yahay maxaa yeelay markaad xumaantiisa sheegayso inaad ka badbadiso lama rabo intuu sameeyey in ka bad xitaa haddaad u qarin karto u qari intaa laakiin haba haddii ay kugu qabato in aad sheegto xumaantiisa war ha u laba jibaarin oo ha u afar jibaarin maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala ayaa leh waman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara الله سبحانه وتعالى أيا بيرقف كشرط انتو كلا إمادو ليه خير كان انتو كلا إمادو ليه ولو الخير كلا لب جباريو الله سبحانه وتعالى أكون جباريو كل نفس بما كسبت رهين نف والبوحي كسبت هي ليه أديقها أو بدين هكبت بدين حتى قفك بركات حمانتي سيشيغيس هدو حتى عيا عدالة وسميه هدو سنولي ناقف أو وحلي حد يجري بس هأرنين كدبي عدي سبحانه دلك كفسك دعا حديثة هأوران انتي أسميني بس الشيء عدالة دواتها رنت واتها دحدحاد نمد واتها مركا خير بان يدين رجينا يا ميل والبود جوكتان الله إذن كنا بديالو تريد إيتيننا وحانو دردارنا يا الله سبحانه وتعالى عبسيديس الله سبحانه وتعالى هلق عبسيدي مركات هل ليسو وهذا like you speak talking to Allah سبحانه وتعالى إن أبد إساقي بالله هل ليسو ترفع لدو inaad isagii la hadlayso oo torfadhido kale u hadal wixii qalad oo ka dhaca astaghfirullah isaga dambi dhaaf ka weydiiso wixii saxsan oo ka yimaadana alxamdulillah isaga uga mahad celi kadana marka guys aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh